السلام عليكم أحبابي وسلامتهين بعد السلام كسو دوادا channel كينا دكتورة سجية أبوكر maanta waxaan ka hadlaynaa 10 cunto oo dabiici ah oo biyaha ragga tayo u yeela 10ka biyaha ragga tayo u yeela oo dabiici ah sidoo kale dareenka kacsiga leh siiya ragga dumarka biyaha manida ah aad u badiya waa kuwan toonta waxay ka mid tahay waxyaabaha badiya biyaha ragga ama minida ragga sidoo kale waa daawo u fiican cudurrada qaar toonta waxay aad u roon tahay marka ay xiriin tahay basasha aad bay ugu wanaagsan tahay caafimaadka guud ahaan sidoo kale waxay kordhisaa minida ama shahwada ninka biyaha marka ay cad yihiin ayay awood leeyihiin qamadiga wuxuu wataa fitamiin kala duwan wuxuu jirka siiyaa awood iyo xoog sidoo kale wuxuu u roon yahay biyaha ninka mooska waa cunada ugu roon galmada ragga daciifiyay waa in ay cunaan mooska maxaa yeelay mooska wuxuu u roon yahay raganimada kacsiga ayuu u keenaa ninka sanjabiilka waxay leedahay dareen kacsi ah sidoo kale biyaha ayay badisaa gaar ahaan dareenka dumarka naagaha kacsiga yar waxa u roon in ay isticmaalaan sanjabiilka xabasowdada waa daawo waxyaabo badan ayay u roon tahay waxaa ka mid ah xagga galmada timirta lama soo koobi karo waxtarka ay u leedahay caafimaadka waxaa ka mid ah xagga raaxada ninka iyo naagta iyo biyaha minada tayadooda xulbada waxay ka mid tahay cunooyinka aadka ugu fiican raaxada galmada ninka iyo naagta awood dareen leh oo raaxo badan ayay siisaa sidoo kale biyaha ayay badisaa dumarka naasaha waaweyn u baahan in ay helaan way u roon tahay xulbada hormoon ayay wadataa naaska weyn ka dhiga dhagayaraha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha u roon ragga iyo kacsiga galmada sidoo kale wuxuu ka mid yahay cunooyinka waxtarka u leh caafimaadka ninka iyo naagta jooska waa cunto iyadoo galmo iyo raaxo siisa ninka dumarka raba in ay awood raaxo yeeshaan waxa u roon jooska sidoo kale biyahana way badiyaan aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan subscribe like la wadaag asxaabtaada si ay ugu faa'iideystaan faa'iidooyinkan waad ku mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.